halkan waa tilmaanta TV akhyaarta qadarinta qiimaha mudan aan nagala socotiin oo soo gudbino warar warbixino waraysiyo aan qabanno week kasta haddii aad markuu ugu horreysay boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-ka anaga si aad u noqoto ruuxa ugu horreeya la socda wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysana mahadsan magaalada Jijjiga dhibaatooyin badan baa laga soo sheegaya xagga shidaal la'aanta dad waxa bajaajley waxay dhaheen 2 maalmood saf ugu jiray petrol nin waxaa jira caag la ordayay oo home cable ay soo wareysteen waa home cable hadda waxay noqdeen waxay bedeleen nabad TV miya mise madaxtooyada loogu jiraa miya home cable waxaan malaynaa madaxtooyada kuwa ku jira ka wakiishay dadkii soo wareysteen waayo cabashada shacabka inay soo gudbiyaan home cable loo ogolaado nabad TV-na loo diido laga eriyo waddanka waa arrin iyadana u baahan in dib loo fiiriyo toosh lagu daaro marka anyway nin waxaa jira caag la ordayo oo lahaa walaalkay oo maaragtay oxygen u baahan ayaa waxaa ka damay mishinkii oo la yiri orod soo iibi muxuu ahaa petrol mishinka lagu daaro dad kale oo shacab hadlayeen 2 maalmood bay ku jireen bajaajtu inay petrol hesho magaalooyinka muxuu ahaa gobolada sida gobolka Qorraxay Shabeelle dhagax buur lafteeda waxaa ka jirta abaaro badan oo dad ku dhamaadeen wararku waxaad la socotaan in maalmo ka hor lacaga aad u badan oo maartay dollar lagu bixiyay shirar igu taageera dalka South Africa marka dawladdan warba kama haysan miyaa waxa ka socda deegaanka kaliya waxa u muuqda sidii taageero u heli lahayn kursigan u sii joogi lahayn what is going on say wax u jiraan waxa u jiraadaan waa nidaamkan copy and paste waxa weeyaan dadka dagaalka ku horna waan garanaynaa hadda inta dagaalku uu dhacayna dadka laba baa laga kala dhigo dad in dagaalka lagu galo hub laga dhigo waa kuwa qoryaha watay yaacaya wixii baaqi ka soo hadho baa la arki gobolka Doolana abaar baa ka jirta waa iyadana dhib baa ka jira waa runta ka reebin buu yiri abaar meel ka jirin baba jirtay dagaalkuna baa ka jirta inaga marka waxay nagu soo hagaagay dadka qaarna in hub laga dhigto dagaalka lagu galo qaarna dakhli laga dhigto marka sixir bararkan dhibaatooyinkan waxa keenaya miisaaniyadii dawladda maadaama oo dagaal meeshii u socdo xagga dambe la wada dhigtay qaarna dagaalkii baa lagu galay marka dadkii baa dakhli laga sameynaya dadka laftiisii yaa dakhli laga sameynaya wax qabad la'aantan iyo waxana aragtana ninkan isagu uu ba hadladay ku aan hadlan karin baa badan Axmedow ku aan la ogeyn baa badan marka waxan wax qabadkoodu nimankan aad aragto waxay qabteen oo la oran karo wax qabadkoodu waa sida hadiiba ay ogolaadeen in nin Jigjiga jooga oo cawdo maanta waxbay qabteen wax qabadkoodu waaba intaa marka waxaan oran karaa cabashadan iyo waxyaabahan waxa soo dhan waa laga daran yahay waxan waxa laga bixi kolka salka dhulka la dhigo waa la soo daaray salka dhulka lama dhigin salka dhulka waxa lagu dhigi karaa deegaankeena xalkiisu dadku waxa laga yaabaa inay waxyaabo waaweyn oo buuro ah iyo hawlo badan iyo dokumentiyo la qoro iyo waxyaabo badan u arkaan si walba markaan u daba galnay deegaankeenu 3-4 qodob baa xudun oo ah horumarka horta muxuu ku yimaadaa meel degan buu horumar ka yimaadaa meel sharci lagu dhaqmayo deegaankeenu markii hore waxaan ku jirnay qalalaase dagaal baan ku jirnay haddana qalalaase siyaasadeed baan galnay qalalaasa siyaasadda in la joojiyo maxay ku imani in sharciga loo hoggaansamo sharcigan la dhigay ay dawladdu dhigtay ee yaala in loo hoggaansamo madaxweynaha sharcigu ku fadhiya kursigan sharci waa in laga qaado sharciga waa inuu hoggaansamo doorashada waa in sharci lagu galo waa in sharci lagu tartamo dadka waa inuu awoodda sharciga waa inuu wax ku siiyo marka inaga dibkeenu waxa weeyaan baan ku leeyahay aasaaska nolosha iyo dawladnimadu waa sharciga weeyaan Axmedow sharciga inta lagu tumanaya ee kolba ninka kursiga jooga mar hadduu sharcigi ka baalmaray muxuu samaynayaa waxaan ku soo wadaa isxulufaysigan iyo dhibaatadan waxa keenaya sharciga markuu qofku baalmaro kursigiisiibu xulufo u samaysanaya ilaan wuu og yahay inuu sharci darro ku dhaqmaye marka muxuu samaynayaa labada nin ee walaalaha ahaa kii damir kala waxa naga daabu horani tii kalena shirima la siinayo waa loo yeedhani oo wuxuu oran hebel baa khaldane ya odayga labada oday ka damir kale waa la tuulay wala la dagaalami ka kala loo yeedhani sultaan baa laga dul magacaabi garaad baa laga dul magacaabi qofka aqoonyaha baa laga dul magacaabi dadka waxa loo yeedhanayaa inta damirkoodu liito ee waxay cunaan iyo waxay cabaan garanaya ee koobka shaay hor yaalla inuu dhamaanayo aan garan karin marka nidaamka dadka wada ayay tahay in lala dagaalamo la iska qabto dadka marka adigu marka lagu dhibaataynayo
adiga ku doodaya marka ani dhabarka liiga tooganayo dadka inaad qosasho laga rabaa haddaad tiraahdo maxaa lagu dilay karateerida ma buuxinaysid shaqana ma helaysid shirikaanka un baad wadani walaalkaa oo dhimanaya shirikaankaas yaad ma taqaanaa shidaal ku daydayani adoo biyala baa lagu oran waad eragsan tahay afka un baa lagaaga taagnaani marka waxa muhiima dadka nidaamka loo kala xadxaday ee gumaysigu u asteeyey ayaynu stiil ku ka xunbaynu ku jirnaa kaas garawshu lahaa nidaamka maanta lagu jiro nidaam ka xun oo deegaanka soo maray ma jiro waxaan taa ka wadaa markaan sidaa ku leeyahay qaabka dadku ayna dareemaynin haddii dadku qaarka garashadoodu yar tahay iyo kuwa dhexdhexaadkii waxay dareemayaan baa jiray waxaa jiray maamul la'aan gumaysi cad imanka waxa lagu dhihi intaasoo aqoon-yahan baylnana intaasoo shaqaale war waxa jiraa ka badan diintaadii dhaqankaagii dadnimadaadii walaalkaaba lagu hor cunaya oodan ka hadli karaynin guushu caalamku waa maxay waxay ku oranayaan hebel wuu guulaystay muxuu ku guulaystay de walaalkii buu dilay walaalkii buu eriyey walaalkii ku guulaystay qof maartay ku guulaystay walaalkaaba dishay guul sheeganaya walaalkii diintani iyo dhaqankeennii bini aadam weeyaan still maantana in waxa sharaf laga dhigani oo siyaasad loo arki nimankii madaxan isu geliyay waan kala qaybiyay hebel ma arkaysay ta ka dhacday ma arkaysay nimankii madaxa isuma gelinin waxaas miisaaniyadii ninkani miisaaniyadu daydayo isbitaalka shidaalka loo siin lahaa dee South Africa ku baxaysa commentiga ku baxaysa haddana aan halayno dad ba mushahar inagu qaadanaya oo commentigeena oo madaxweynaha dhan u akhrinaya u soo jeedaya caawa dhan oo la oranayo hebel maadan u jawaabin oo mushahar ku qaadanaya oo haddii kale xaafadoodii isha dhaweyd nin baa ii soo diray fariin moogtahay waan garanayaa halkan ka sheega mar rabo waan in la ka cabsan moogtahay wuxuu yiri waad ogtahay in mushaharkuna yar yahay markaan ku qabanayno nala haysa buu yiri ana waxaan ku yiri waan ognahay in carruurtuna badan tahay mushaharkuna yar yahay naqaqabada dib ma lahe waxa ummadda siyaasad iyo horumar looga dhigayo waka dadka waaweyn ee mas'uuliyiinta ay siyaasad inooga dhigayaan dhaqan inooga dhigayo waxa la samaynayaa cadaaladu marka adiga lagu yeero adiga haddii cadaaladda loo arko adiga Axmed marka lagu dhibaataynayo aan dhaha uma taqaana cadaalad darro ma jirto waa la barwaaqaysan yahay dibku markuu ani taabtana la yiraahdo cadaalad darro jirta maanta deegaanka marka waxa ka jira sax dadkii kuwa shalay wax tabanaya oo badan inta wax loo yuuqay ilayhi maanta cadaalad baa jirta ma jirto adin baa dhargay oo wax lagu siiyay aakhirana waa lagu weydiin doonaa adduunkana adigoo sharaf darro ah oo madow waad ku noolaan doontaa meelaad ku cuntana ma jiri doonto waxna kuma taray waana xaaraan adigoo qombabadaad arki doontaa berri toole marka cadaalad ma jirta adiga lagu dharkiye cadaalad darradu sidiiba u socota waxaan malaynayaa su-aasha inuu ka jawaabay siraaje weegi horeeto haddana mar kalaad ku soo celisay maxamed waxaad tiri siraaje ii weydiiyey sababta aadan faarax iyo ibraahim ayna wax iga sheegin mar kasta mustafa uga hadlo su-aasha waad ka jawaabtay waa sax kan waan uga jawaabaynaa daa waa ilka castay waan u malaynaa waxba siraaje dhabarka xanuunaya ma sifadhin karo dhabarka dhaawac ka gaarina waxa waan uga jawaab mustafa cumar markay waan uga jawaabina waan uga jawaabaynaayo horta waxana waan ka hadlaynaa waa system weeyaan system kana nimankaasi waa niman federaal ah xafiiskooda ka mas'uul yihiin dadku inay si khaldan u arkaan ma aha Soomaali way ka socdaan weeyaan nin walba waxa la weydiinayo waa xafiiskiisa aadan faarax xafiiskiisa un baa lagu xisaabtamay federaalka wixii ka dhaca laakiin dawlad deegaanka Soomaalida wixii ka dhaca aadan faarax lama weydiinayo wakiilna kama aha mandatekiisana ma aha صح haddii xildhibaan loo doortay waa xildhibaan federaal ah meesha loo magacaabay Axmed Shide maaliyaddu waa wasiirka maaliyadda wax laga weydiinay Ethiopia wax la weydiinay miisaaniyad Soomaalidu lahayd oo hadhimay jirtaa iyo xuquuq ay lahayd oo ay ku fadhido maaliyaddu ay ku fadhido wixii la soo dhaadhiciyay iyo resource-ka qaabka meeshii lagu maamulayay ee wax lagu qalayay ee hawli ka socotay ee magaca Soomaalida dawlad deegaanka xambaarsanayd Axmed Shide lama laha waa dawlad deegaanka Soomaalida waa wasiirka federaalka weeyaan dawuba u yahay xabashibu u yahay oromo u yahay dadku ka dhaxeeya laakiin inaga waxa inaga dhaxeeya waa deegaankeena dibkiisu maadaama na taabanayo cid si xun u wada ayaan qaliisha u badinayna waan ka hadlaynaa اوكي سراج هدي ادن ما عرفت waxba ku darsaneen waan fasaxayna aad ma san tahay hadii aad halkan waa tilmaantii video xaaqada qadarita qiimaha mudan aad nagala socotiin soo gudbino warar warbixino waraysiyo aan qabanno way kasta hadii aad markuu warayso boggan fadlan subscribe ku soo YouTube channel-ka anaga si aad u noqoto ruuxa ugu horeeya la socda wararka iyo warbixinada dad mar hore ku salaysan mahadsan